بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka qaar waxay u doortaan in loo doorto inay noqdaan ama magac yeeshaan ama manfac ka helaan. qaarna waxay doorashada u galaan inay dalkooda iyo dadkooda aragti ay leeyihiin ay ku hoggaamiyaan oo ay dalka wax ka bedelaan oo ay horumariyo wanaag u horseegaan anigu qaybta dambaan ah waxaan sheegay taariikh nololeedkayga iyo dalka wixii aan u soo maray oo maragma doona waxaan ku ahaa fishagaygu waxa weeye sida ku cad programka xisbigayga oo ay dad badan oo aqoon-yahani ka wada tashadeen ay soo diyaariyeen fishagaygu waxa weeye in aan samayno dawlad qabata mas-uuliyaddeeda oo xilka ummadda uga soo baxda waxaa qudbaaniyagu iyo qiimaha iyagu wuxuu yahay dawlad wanaag musuqmaasuq oo loo dagaalamo dad aqoon loo qof waliba xilku leeyahay loo dhiibo Somaliland oo dhaqaalaheeda kor loo qaado iyada oo kaabayaasha dhaqaalaha kor loo qaado dalka nabadiisa oo la ilaaliyo iyo in ictiraaf rasmi ah ka noqoto adduunka qayb noqoto loo doono qorshaha ayaan doonayaa lagu doorto xisbigayguna soo diyaariyey tiim adag oo dalka xaaladan xaalad ka waraysan geeyana aanu soo diyaarsano haddana u diyaar noo yahay waxaa intaa noo raacaa waxaan u aragnay dawladdu inay saddex wax oo keliya qabato dawladdu marka hore inay noqoto dawlad dadka caawisa oo kaalmaysa dadka nugul sida naafada dadka buka waayeelka iyo dhalinyarada shaqada inay dawladdu noqoto mid xoojisa oo waxgelisa tarantka dhalinyarada iyo inay dawladdu dadka iyo maalka iyo naftooda oo ilaaliso oo qofka Soomaaliyeed gudahana ammaan u ka helo xadkiisana aan cid ku soo gudbin qodobka ugu dambeeya ee doonaya laga doonayo waxa weeye وقيم كيغا oo ah daacadnimo amaano iyo hawlkarnimo بسم الله waxaan looga qorshaysan aniga iyo xisbigayga iyo tiimkaygaba horta si loo helo amni waxaa koow ka dhigaynaa inay dadku cadaalad helaan haddaad aragta meel amnigu wuxuu yahay cadaaladda xun waxaanu xoojinaa hay-adaha cadaaladda oo wixii ay u baahan yihiin oo u huraynaa si qofku uu u aamino haddii laga gardan hadaynu cadaalad helayo amniga gudaha si uu u hagaago waxaanu ka jawaabi doonaa tabashooyinka gobolladu dhexdooda ay kala tabanayaan si qof waliba uu u aamino in qadiyadda Somaliland loo midaysan yahay oo qof waliba xuquuqda iyo waajibaadka ku lahaa u helayo laba waxaanu ku barbaarin doonaa oo tacliinta soo marinaynaa da'yarta ah waxa la yiraahdo muwaadinimada iyo wax wada lahaanshaha iyo isdulqaadka ilaa iskuulada halka laga soo bilaabo ee carruurta lagu soo barbaariyo markaanu dadka maskaxdooda u jeedino inay amnigooda ilaashadaan oo is-aaminaan waxaanu taageero wadaynaa tayeynta ciidamada amniga gudaha booliiska ciidamada wardoonka iyo dhammaan hay-adaha la xidhiidha wixii amni ku saabsan iyada oo loo fulaayo tababar daryeelkooda iyaga iyo xaasiskooda wax furan la siiyo gaadiidkooda iyo wixii ay qalab u baahdaan waxaanu tixgelin doonaa dadka ciidamada ka shaqeeya ee hal abuurka leh barnaamijka iyo qorshayaasha ay keenaan waxaa loo xuli doonaa dad aqoon sare u leh oo waayo arag u leh sugidda amniga dalka gudihiisa waxaa laga ballanaa inuu qof kastoo Somaliland hantidiisa maalkiisa iyo sharafkiisa ammaan ku helo ayaa fikradayada iyo fishiga yubiya waxaan xoog saari doonaa in qof walba oo Somaliland uu helo daryeel naf iyo maal iyo cadaalad hadday dhinto oo qaranka ku aamino ee uu reeriyo caaqil ku aamino taas aan noo go'aan waxaan ku soo gabagabeynayaa amnigu waa laf-dhabarta qaranka cabashooyinka ka jira gobollada qaar waa jira laakiin kuma raacsanin in la soo qaranku waa midaysay waxaanu wax uga qabanaynaa waxaanu u furaynaa dood ciddii cabasho qabta in laga dhegaysto cabashadooda haddii ay gar helaanna gartooda la qaato oo wixii ay tabanayeen loo saxo waxaanu bogsiinaynaa in horta dadka aanu isugu yeedho isbartaan ogaadaan gobolladu oo ay dadka waxa laga yaabaa inaanay dadka
waxa lagu doodayaba aanay ka wada dheregsanayn marka waxaanu furi doonaa in ay gobolladu waxay kaga cabanayaan dowladda ay soo bandhigaan oo ay xor u noqdaan oo laga wada hadlo dabeetana waxa lagu heshiis yahay halkaa lagu xalliyo waxaanu ka soo horjeednaa in si aan dastuurka waafaqsanayn dalka wixii hanti ah ama awooda wax dastuurka ka baxsan aan lagu qaybin ee loo qaybiyo sida dastuurku tilmaamay oo lagu adkaado sharciga dalka u yaalla waxayna tahay dalka wuxuu u baahan yahay dowlad tiro yar oo tayo leh waxaana ka codsanayaa dadku inay taa dhiirigeliyaan in badan baan soo joogay dowladda dhisaayo oo tayo yar oo marka hore lagu bilaabo cabdiraxmaan axmed cali cigaal riyaale silaayo waxaan qabaa qof waliba inuu u socdo inuu dowlad tayo yar oo tiro yar oo tayo la dhiso aniguna taasaan aaminsanahay oo ku hawlgelayaa dadweynahana waxaan ka codsanayaa laba hal baan isqabanin dimuqraadi baynu nahay dadku ha dhegaysteen madaxdu ha dhegaystaan shicibka cabashadiisa iyo shicibku inuu jireeyo inay ku qasbaan madaxdooda dowlad tiro badan sidaanu ka soo baranay 26 sane aynu dowladda ahayn marka anigu waxaa naga go-aana inaanu soo dhisno dowlad tiro yar oo tayo leh oo aan technicians mid wali technocrats mid waliba shaqada loo diro uu yaqaano waxaanay ku caddahay barnaamijkayaga kii horeba way ku caddahay laakiin waxaa bedelay pressureka dadka ka yimid iyo codsiga oo ay ka mid tahay gobolladu cabashada ay ka muujiyaan wasiirada oo inta badan loo arko saami qaybsi goboleed ama qabiil waxaan ku dadaalay oo aan xoogga saaray inaan taasi dib u dhicin ee hoggaanku noqdo mid kooban dadkuna wuxuu taga anugu mid waa ku waafaqsanahay labada saaxiib oo ah in la kala madax banneeyo saddexda waaxood ee dowladda oo uu garsoorku madax bannaani buuxda helo waa la waafaqsanahay anagu hadda daraasadeyn bayna mushkiladda taalla garsoorka mushkiladda horaan u soo derisnay xalkiina waanu haynaa marka shicibka codka la siiyana xalkii baanu dhaqaaqayna xalkaanu gelayno ka bilaabayna wuxuu yahay koow horta halkay ka soo bilaabataa cadaaladdu waxay ka soo bilaabataa qofka ugu soo horreeya dembiga dhacay hadduu buriis yahay iyo hadduu qof muwaadina yahayba dadka ugu soo horreeya wixii dhacay ama keeskaa goobjoogga ugu horreeya ayaa loo baahan inuu cadaaladda noqdo marka waxaanu tababaraynaa ciidamada amniga ee soo bilaaba garsoorka ayaanu aqoon xoog leh iyo in la daryeelo oo ay cadaaladda iyaga kasoo bilaabataa waanu bilaabaynaa waxaanu bilaabaynaa waanu xalkeeda haynaa garsoorka in aanu barro cadaaladda iyo sida dhibaatooyinka loo xalilo dhex loo noqdo dadweynaha in duruusta la siiyo waxaanu aqoontooda kor u qaadaynaa daryeelkooduna kor u qaadaynaa madax dhaqameedka oo kow ka ah nabadaynta iyo cadaaladda dalka intaa marka laga soo gudbo ee hay-adaha amniga iyo madax dhaqameedka nabadda cadaaladda ku shaqada leh iyo dadweynaha isku darro ayaanu daryeeli doonaa u soo gudbi doonaa garsoorka daryeelkooda aqoontooda iyo madax bannaanidooda in la siiyo waxaan ugu eegi doonaa in la hubiyo daryeelka markay beeshan galaan nimankaa xuquuqda ka shaqeeya ee garsoorka iyo intay joogaan nabadgelyadooda in la sugo si ay ugu dhiiradaan xaqa oo aanay cidna ugu habranin ayaanu siin doonaa garsoorayaasha xuquuqal insaanka iyo xorriyadda dadka horta sharciga inoogu weynana ku dhaqana waa diinta islaamka iyada u raacnana boqolkiiba boqol way noo hirgelaysaa inay dadkeenu sugnaanaadana ay xuquuqsan laba xuquuqda maanta inaga dhibaatooyinkayna haysta markaynu eegno shuruucaha iyo xuquuqal insaanka
mala awaal iyo tiro hadal guud mari mayne waxaanu aragnaa inaynu saddex meelood kor u soo qaadno xuquuqda ay leeyihiin oo aynu mujtamac ahaan aad u dulino kow mid waa beelaha gabooyaha waa nabar ku yaalla iyo soomaali badankeedaba waa ayaan daro innagoo isla ogol oo ka jad ogol arrintaa in kor loo soo qaado oo aynu dhibaatadeedooda arkayno haddana weli inooma hirgelin annagu waxaanu qaaday tallaabooyin dadkaa horta iyaga lagu koriyo maskaxdooda iyo shaqasiintooda iyo maalgelintooda horta in iyaga qab loo yaro kor loo soo qaado wax la taro kabacdina dadka laga dhaadhiciyo inay diin iyo dadnimo qalad tahay isaa loo galaa ta labaad waa haweenka oo siyaasiyan iyo maamulkaba ka qatan oon xaq loogu lahayn ta saddexaad waa dadka naafada ah hadduu indhalaa yahay hadduu curyaa yahay iyo hadduu gacmalaa yahay iyaduna way nagu dayacan tahay saddexdaba qorshihii lagu geli lahaa oo tallaabo ah ayaanu haynaa waanu ka bilaabaynaa marka insha allahu codkiina aana siisaan ta ugu daranina waxa weeye ee xanuunka badan waa saata gabooyaha iyo ta naafada haweenkana waa in xuquuqda hogaaminta iyo maalgashiga ama shaqada ay dadka ku leeyihiin kor loo soo qaadaa tallaabooyinkeeda 2 minute ku dhammayn maayee way noo taallaa waananu qaadaynaa annagu iminka dib u bilaabi mayno waxa la yeeri doonaa iyo waxa la yeelaya jibcada quruur xasaa waxay ka tiri ku meermeeri mayno talabadeedii waanu haynaanu qaadayna aad iyo aad u mahadsantihi sida loogu qaadayo shilinka Soomaaliland kor loogu qaadayo sicir barka loo xakameeyo tallaabooyin baynu maraynaa horta isdaba jooga marka hore horta sicir barku caalamka oo dhan waa wax jiro la dagaalamo aan dhamaanin oo dalka Mareykanka ugu weyn iyo inaga ugu liidana laba taa wala dagaalamayna inagu si aanu hadda uga baxna sicir barka koow waxaanu ka dhigaynaa inaynu horta noqono ummad soo saarta waxay cunto ummad ilaa tamaandhada iyo caana maraaciga iyo xoolaha u badan adduunka la soo iibsanaysa sicir bar waayi mayso waxaan oo qorshaysan inaan soo saaro wax cuntada dalka laga cunaayo sanadka u horeeya inaan soo saaro 20 ka labaadna 30 seen u soo saarayna 4 milyan baynu nahay cuntadeena u baahanahay haddii qofkii la eego 200 gram inuu u baahan yahay maalintii oo carbohydrate sanadka waxaynu u baahanaynaa 432 tan oo carbohydrate iidaanka haddii aynu ka eegno xoolaha iyo baruurtooda aynu deynay caanahooda oo aynu beerna saliid waxaynu u baahanahay qofkii 70 gram oo saliida 4 milyan baynu nahay marka aynu ku dhufano waxaynu soo saaraynaa waxaynu u baahanahay 29 oo tan xageenu ka beeraynaa dhulkeena haddaynu goolba 13 kilomitir ka beerno waxaynu soo saaraynaa cunto aynu ugu filan sanadka horeeya 30% saddex salaadaynu ku darrawaynu ka gudbaynaa baanka dhexe waa inuu shaqadiisa qabsadaa waa in la xoojiyaa waa in suuqa lacagta ilaaliya si shaqo abuur loo abuuro loo helo lacag oo ummaddu waxaan ka baxdo waa in dawladda oo baayac mushtarka oo baayac mushtarka lacagtii hayo dawladduna hogaamintii haysaa ay u wada fadhiistaan oo ka midoobaan sidii lacagta ay hayaan baayac mushtarku dalka loo gelin lahaa baayac mushtarkana loo siin lahaa assurance iyo aaminaad xaalad ay xoolahooda ku geliyaan shaqo abuur iyo warshado oo aanay xoolahoodu ku lumin ama aanay waayin conducive su'aashan markaa dawladda tii hore waa isku mid way isku xidhay marka dhaqaale la abuuraa shaqo abuur la sameeyaa haddii la yiraahdo annaga waxa noo qorshaysan oo nu fulin doona biidnillaah marka u horeysa dhalinyarada waxaan ku soo celinaa wixii loo jiray shaqo qaran rag oo dhan shaqo qaran baan galeynaa wixii jaamacad iyo secondary dhameeyay ee aan shaqo helin laba dadku waxay u qaybsamaan shaqada laba meelood mid waa dadka reer miyiga ah midna waa dadka magaalada jooga reer miyiga jooga halkoodaan ku shaqaalaynaa waxaanu u geynaynaa mashaariic environmentkooda deegaankooda wax ka qabta biyo la xidha ha noqoto waddo la dhisa ha noqoto dhir la beera ha noqoto oo isaga oo xoolihiisa haysta aanu siino kaalmo dhaqaale oo hawshaa ku qabto dadka dhalinyarada ah
wixii caafimaad ahaan aanu gelaynin shaqada qarankana waxaanu u samaynaa shaqo fudud dhaqaalaha ay helayaan ma badnaanaya marka hore laakiin waxaanu kaga saaraynaa fadhiga ta saddexaad qorshihii hore ku socda oo ah in la sameeyo dhaqaalena hore loo tilmaamo waxaa kow ka ah in maalgashi dalkaa la helo ku dibadeed ku gadoodba oo ay dowladdu waddadeedu jeexdo taana dee saacad baad ugu soo yaraysay si aan kugu sheego qodobada nolosha raacan oo hadalkii baa soo gaabanaya waxaana kow ka ah inaynu bedello tacliinteena oo aynu soo saarno dad iskilida xirfad leh ee aynaan dhammaanteen baran business oo dalkoo dhammi jaamicina uu noqdo suuqna aan loo hayn maadadii u bartay waxaynu u baahannahay inaynu dadkeenna barro oo aanu ku dhaqaajin doonaa discibliin ama aadaabta shaqaalaha oo qofka shaqaynaya qofka uu shaqaynayo marka hore ay isfahmaan ee aanu qofka u shaqaynaya aanay isqabsanin talabooyinka aanu doonayna inay shaqalaanta laga baxo kuwaasaa ka mid ah nolosheenna iyo dhaqaalaheenna waa ka kow abaarihiina waa naafeeyano xoolii waa dabargo waa sii yaraanaya dhulkeennina abaaro badan baa kusoo noqnoqdo labadii sanaba mara waxaynu u baahanahay inaynu dhulka ka faa'iideyno si ay xooluhu u noolaadaan si aynu taa u helno waxay ku noqonaysaa oo su-aasha la xidhiidhsamaysaa tii u horraysaydna weydiisay ee ahayd amniga ka warrama xooluhu waxaa la dhaqi karaa ay noolaan karaan marka la helo kala dambayn iyo ismaqal iyo cid xoolahan xuquuqdooda dar yeesha oo furisa waxaynu u baahanay dhulka inaynu u qaybinno meelo la kaydiyo seera ah oo markay abaaru baxaan lagu baxsado waa inaynu helnaa inay dowladdu taa awood u hesho oo aanay dad gaarays hortaagin waxaynu u soo joognay sanadkii u dambeeyey seero kastoo loo odayay inay dad ku dhintaan oo kooxis urusta ay rasaas kala daasho dadkii danta guudooday marka waxaynu u baahannahay horta inaynu keenno kala dambayntii in dhulka la qaybiyo oo si qaran loo eego oo dhul seeraha xoolaha loo kaydiyo oo xoolaha la dejiyo oo socodka laga daayo dalkeennuna taa waa u qaybsamaa waxaynu u baahannahay in xoolaha tayadooda la kordhiyo oo neefku intuu caana soo saarayo iyo intuu ku korayana dhakhaatiir cilmina loo tababaro oo taa ku keena xoolaheennu maanta way sii dabar go-ayaan waxaynu u baahannahay in quud kale aynu helno dadkoo dhammi waxaynu u baahannahay inaynu maalintii intaasoo xoolaa qolno oo nin waliba nus kilo hiliba cuno waa inaynu dadka barraa digaaga kalluunka iyo wixii kale khudaara si ay xoolihii u soo kabtaan waayo xoolihii oo abaare naafeynasoo sii dabar go-aya xaggii magaalooyinka hargeysa imse nafay maalintu maanta in la qalo waa in la helaa wax kaloo lagaga nasto si loo koriyo waxaynu u baahannahay dadkeena reer miyiga xoolaha dhaqa oo aqoon reer miyiga u leh in aynu barro aynu maalgelino sida loo dhaqay casriga ah xoolaha caafimaadka labada sane ee xukuumadda jirtay in badan baa laga qabtay waxaynu ka qabanay in loo sameeyey siyaasadda caafimaadka ee dalka cabashadu way jirtaa waa waxay u baahan tahay inaynu kordhino aqoonta dadka ka shaqeeya maamulka isbitaalada dhakhaatiir udka waynu haysanaa waxaynu xoojinaynaa maamulka isbitaalada waxyaabaha u baahan inaynu tababarooda sameynaa waxaa kamid ah qalabka casriga ah ee dowladda wasaaradda caafimaadku isticmaasho oo ardayda u noqon tahay in badan loo tababaro u ah waxyaalaha ku guulaysana waxaa kamid ah keliyaha sifeydooda mashiinii ahaa oo aynu bilaabnay 2 sano ka hor guur walba ka gaadhnay waxaa maalintii la sifeeyaa in ku dhow 50 qof oo loo keeno gobolada iyo meelaha kafida kala waxaa weli inoo maamula qayb ahaan dad ajnabiya marka waxaynu u baahan tahay oo inaynu la jaan qaadno aqoonta cusub ee qalabka caafimaadka iyo dadkii ay waxbarahay jaamacadaheeda iyo iskuulladoodana
ma gaarsiisna heerkii farsamo ee ay MRN iyo mishiinka keliyaha safeeye iyo kuwa kale oo aad u horumarsan intaynu barana markaas muddo qaadanaya haddaynu dedejin lahayna dhaqaalaheena ayaa ogaana qiimaha mucallimiintooda iyo qaabka iyo sooxidooda ayaa waday aasaasaday shantii hore anu intaasaan samaynay qabyadaan u arkaynaa qorshaheeda yaala talabeedaan qaadaynaa kuma horeyn u horeey waxaa leedaho aad baa masan da'yarta in mustaqbalkooda la waraajiyaa waxa weeye mustaqbalka dalka oo dhan waana waajib oo waa aqoonsanahay talaabooyinkii aanu qaadnay ee hore ee barnaamijkayga hore ku jiray waxaanu bilaash ka dhignay tacliinta hoose iyo dhexe waxaanu ugu talagalnay qorshe ahaa markaa inay labilaabmaan ardayda loo baahan doonaa qorshaha aanu dhignay waxaa soo baxay inay 4 laabmeen ardaydii soo gashay markaa miisaaniyadii ay iska dhintay si loogu talagalay la kordhiyey welina ay u baahan tahay in arrintaa xal loo helo in miisaaniyadda wasaaradda la gaadhsiiyo ilaa 15% waxaana noo qorsaysan inay 12 labada sanada hore ay gaadho 15% miisaaniyadda dalka wasaaradda waxbarashadu lacagtaana lagu tayeeyo macallimiinta iyo curriculumka ay dhiganayaan waxaan isku waafaqsanahay in aynu u bedelo iskuuladeena iskuulo farsamo oo inanku ama inantu ay shaqo ku heli karto waxaanu xoojinaynaa oo weli kala hooseeya proportionka inta arday inta wiil iyo gabadh iskuulka ku jirta waxa soo baxday markii dib loo eegay habluhu secondary-ga markay marayaan inay 40% ka haraan tacliinta sababa dhaqankeena awgood ah iyo dadka qaarkood faqri badan oo haysta waxaanu fuli doonaa inaanu u samayno hablaha dhaqaale gaar ah oo inantii dhaqaale xumo uga haraysa iskuulka lagu koriyo inta ay jaamacadda ka baxayso haddii ay dhaqaale la'aan hayso waxaanu soo aragnay waay aragnimadeennii in aynu la wareegno oo xukuumaddu maamusho iskuullada dadka maaragtay ay wax u dhiman yihiin ama laxaad kala indhoolaha dhagoolaha iyo carruurta qabta oo maalgashi shisheeye si loo helo oo aynu khayraadka dalkeena ku duugan ula soo baxno waxaynu u baahannahay inaynu tallaabooyinka soo socda qaadno kow horta inaynu noqonno dal kala dambayn iyo sharciyad leh dal maamulka uu qaranku meel qura ka socdo oo dowladdu qofka waxay la gashaa uu toos u fulo waxaynu u baahannahay dalku inuu yeesho dad aqoon iyo xirfado u leh shaqooyinka loo baahan doono ee dadka maal gashanaya ay ogyihiin waxaa taa dheer inay dadku noqdaan dad dabeec akhlaaqdoodu ay tahay mid ay dadka la shaqayn karaan oo ilbaxnimo ay ka muuqato oo qofka kula shaqaynaya maal gashanaya dalka uu noqdo qof fahmi kara saddex waxay u baahan tahay oo looga baahanya dalka inaynu marka hore ku qabanno inaynu u samayno xaaladaha dalka maalgashiga loogu yimaado oo kow ka tahay waddo light biyo iyo amni qofku waa inuu hubaa xoolaha uu meesha gashaday inuu la bixi karo sharcigeeduna cad yahay taasina waxay u baahan tahay hanaan dowladeed ama hab dowladeed oo adag oo qofka lacagta leh isku halayn karo iyo dad ilbaxa oo dadka soo jiidan kara waxay u baahan tahay in maalgelin shisheeye la helo in aynu siyaasadda arrimaha dibadda ku xoojinno dad xodxodashada u yaqaana inay ku qanciyaan dadka maalqabeenka ah ee shisheeyaha inay dalkeenna yimaadaan waxaa ugu dambayntii aynu u baahannahay inaynu dalkeenna u abuuro jawi ama deegaan qofka shisheeyaha ah ee maalqabeenkii aamini karo u soo hilaabi karo oo ku nagaan karo
siyaasadda arrimaha dibadda intii ay xukuumaddani jirtayna tallaabo weyn oo horumara laga qaaday oo waxa baynu gaadhnay iyadoo layna ictiraafsanayn inaynu maalgashi caalamiya la samayno dowladaha ay ka mid tahay carabta imaaraadka carabtu iyo dowladaha ay ka mid yihiin u badan yihiin Chinese-ka ee petrolka baaraya tallaabo weyn baynu ka qaadnay sidii laynoogu kalsoonaan lahaa caalamka guud ahaan iyo jaarkeenaba ta qorshaha waxaanu sii xoojinaynaa oonu dib u baaraynaa wixii ka soo baxay challenges qorshaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee 5 sano iyo 20 sano hore la waday ayaanu dib u eegnay oo qorshaheedii yaala wixii challenges naga hor yimid waxaynu u xilsaaraynaa dad aqoon iyo xirfadeeda leh oo arrimaha dibadda ku xeeldheer oo aynu ku xoojino wasaaradda arrimaha dibadda si aynu guul gaadhno waxaynu dooran doonaa caalamka dalal ka mid ah oo aynu oran karno dalkeebaa ugu dhow oo aynu arrinteena kula eeran karnaa oo waxay nagala qaban karaa ama aqoonsiga aynu u baahanahay inoo bilaabi karaa waxaynu hagaajin doonaa wejiga arrimaheena gudaha habka dowladnimo ee aynu ka soo halkan ayaa noqonaya ta caalamka nagu aabinayo maamul wanaagga la dagaalanka musuqa kala dambeynta iyo amniga ayaynu xoogga saaraynaa si ay u noqoto caalamku muraayad ay naga arkaan waxa kaloo aanu fulin doonaa inaynu xoog saarno siday dalalku inoogu kala dhow yihiin ee jaarka inoola yihiin oynu hawsheenna ka bilowno dalalka jaarka ah ururka afrika iyo caalamka بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaynu u xoojinaynaa xiriirka wadamada aynu jaarkaan nahay horta jaarkaaga ma dooran kartid ilaahay baa kuu dooray qaacidadaas aynu ka doonaynaa waxaynu u xoojinaynaa qodobka koobaad waxa weeye mabda'a inaynu si equal ah oo siman oo ixtiraam siman iyo manfac siman leh aynu u heshiino jaarkeen si aynu taa u gaadhno waxaynu inagu diyaar u nahay jaarkeena inay naga helaan ammaan oo aan xaggeena cadow uga tegin waxaynu diyaar ula nahay oo aynu ku hirgelinaynaa inaynu samayno xidhiir is-afgarasho oo wada hadal oo labada jaara wixii u dara oo si u siman ah aynu la galno taana guul weyn baynu ka joognaa 26 sano oo jaararkeena laba ka mid ah xidhiir wanaagsan oo qiimo leh oo in la sii kordhiyo eg baa inaga dhaxeeya ka kalena waa nimanka Soomaaliya oo iyaga loogu taaglayahay aynu noqono laba qaran oo mid ah waliba kulli way ka dambeyn doonaan qolada wadanina arinta kuma dhiirana oo way ka gabadaan waxaynu ku wanaajinaynaa xiriirka Soomaal jaararkeena inaga oo samayna baac mushtarka ka midowna oo fududayna isu socodka dadka iyo baac mushtariga oo caalamku maanta wuxuu wada fududeeyay oo uu arkay xuduud xaniban iyo qoladan maxaa la yiraahdaa immigrationka safarka oo adag iyo sharciyada maalgashiga ee labada dal dhexdooda in la fududeeyo si aynu khayraadka jaararkeena iyo amnigeenaba u wadaagno horta wada hadallada xisbiga kulmiye qaranku u soo jeediyay labada gole iyo ummadda oo dhan cabdiraxmaan waxa gudoomiyihii ogolaaday waxaanu ka mid ahay labada iyadaba ragii tagay akra ee goobjooga ka ahaa ee hawsha wada joogay su'aal labaadna waa cadayno waxa laga bilaabay ingiriiska maxaa turkiga keenay oo mira dhal u noqon waayeen buu cabdiraxmaan soo jeediyay taana waxaan leeyahay xubnihii soo raray ee budhiga u ahaa ee arinta waraageeda iyo dhilishada hadda canaanasi hadii kale waday ee wax ka soo saari waayay waa hoggaanka sare ee wadani ee adiga kula jooga maxaa anaga noo qorshaysan imika waxaa noo qorshaysan wada hadalladu mabdi'iyan waxaanu ogolahay arinta Soomaaliya Somaliland in wada hadal lagu dhameeyo
in xal nabadan loo helo ayaanu aaminsannahay oonu ku dadaalaynaa in iyaga laga waayo mooyaane sidaynu u gelaynaa wada hadalladii hore khasaaray noqdeen waxba kama soo bixin madadaalay ahaayeen eedeedana waxaan leeyahay annaga maanta mabda aanu bilownay oo xukuumadda maanta joogtaa bilowday laakiin wixii ka xumaaday ciddii ka xumaysay waa hoggaanka sare ee waddani maanta oo nooma dhex aha annagu waxaanu bilaabaynaa wada hadallo caalamku dhexdhexaadiyo oon turkiga ku ekayn la helo fagaaro caalami ah oo inoo gar qaada oo aanu garteenna kula baxno waanu hubnaa oo waan ku kalsoonnahay oo waa noo diyaar gartii soomaali lahayd ee aynu ku kala bixi lahayn waxaanu caalamka uga baahanay qura inaanu helno fagaarina loo gar qaadi lahaa kama warwar qabno garta somaliland inay labaclabac gelayso tii hore waa lama jara habaabiye tii hore qiimaheeda lama marin ciddii markaa gacanta ku haysay oon maanta kulmiye iyo xukuumadda hore ahayn ayaa fuliya arrintaa dhicis ka dhigtay qodobkaasi wuxuu ahaa qodob lagu heshiiyey markii la waday wadahadaladii turkiga ka socon jiray laakiin qolada koonfurtu way diideen manay fulinin innagana xaggeena wuu ka buray xaggeedina wuu ka buray wax isugu keen jiro caalamku la odhanayo waa la siinaya ama iyagaa qayb la siinaya ma jiro caalamka wixiina caawinaya toos baynu caawinada weydiisanaynaa ku warwareegi mayno beri baanu labadaa erey isnidhi oo turkiga warqadda ka saxay caalamka waxaynu weydiisana toos baynu weydiisanaynaa tii hawadana halkeedii hore laba daloo kala go-ay oo nin waliba hawadiisa wixii uu cashuurayo uu ka cashurto ayaynu ahaanaynaa arrintaasi labaclabac iyo isdaba socod dambe yeelan maysa ilaahay idankiisa waxaa kaloo aanu u taaganahay arrintaa layna daba wado ee la leeyahay mucaawanada iyo somaliland ayaa la ictiraafsan yahay ha la wado caalamka inaynu si qeexan u diidno in wax maydhaana oo ka hoos soo yaala soomaaliya inaynu noqono taana mowqif adaga oo cad baanu caalamka u sheegay waanan qabaan inay naga garowsanayaan markaynu bosishanka istaagno oo inaan mar dambe waxba xaggooda inoo soo marayn waa kaa bosishanka iyagu haddii ilaahay idhaahdo marka aadna doorataan waxaanu ballan cad ku qaadaynaa inaanu boqolkiiba 2 budgetka miisaaniyaddeeda aanu u qoondayno in doorashooyinku wakhtigoodii ku dhacaan waxaanu waaye arag u nahay oo naga go-an oo qorshaheedu noo yaallaa inaan doorasho dambe wakhtigeeda dhaafin haddii aanay iman forsa majora awoodi naga weyn ku dhisma maysa soomaaliya waana waxyaalahay aada isugu hiftay inay doorashadu hadba dib u dhacdo waxaynu hortaagan 3 aqal oo muddo dhaafa waxaynu u baahannahay dhaqaalahoodii waxaanu hore ka yeeri doonaa inaanu xoolo dirqi lama waaye u raadino oo wixii nabadgeliyada iyo caafimaadka iyo waxbarashada ahaynba ka hormarino dhaqaalihii lagu soo dooran lahaa golayaasha muddo dhaafay waxaanu shacbiga u ballan qaadaynaa inay arrintaasi naga go-an tahay oo weliba ta madaxweynuhu haddii aad igu doorataan aan ballan cad ka qaadayo amar ilaahay iyo qadar weynada mooye inaan wakhtigeeda dhaafin horta dimuqraadiyaddu ma aha in 5 sano ama 6 sano mar doorasho la qabto micno ka weyn bay leedahay marka waxaynu u baahannahay inaynu micnaha dimuqraadiyadda dhammaantii wada hirgelino haddii kale aynu ka qaadano uun hala doorto wax oo aynaan wixii kala fulinin dee qabyaaladdu tegi mayso kow dimuqraadiyadda waxa uu asaasaa dowlad wanaag dowlad wanaagguna wuxuu asaas u yahay inay dadku ka helaan dowladda waxyaalaha ku kalifaya inay xagga qabyaaladda u cararaan waxaa kow ka ah inuu qofku aaminsan yahay inay dowladdu naftiisa iyo maalkiisaba iyadoo ilaalin karto
oo uu taa aamino oo la tuso waxa ka mid ah inuu dareemo qofku oo la tuso inuu helayo garsoor xaq ah oo cadaalad ah oo uu dawladda ka helayo oo uu kaga maarmo inuu reerkiisa dabada geliyo waxa ka mid ah in qofka dhaqaalihiisa uu ka helo dawladda oo haddii uu shaqeeyana wax ku filan uu helo hadduu shaqo leeyahay ama gaboobana uu xuquuq helo uu ku noolaan karo oo uu ka maarmo qaaraanka reerkiisa waxa ka mid ah in hantida dawladda uu xuquuq la siman leeyahay muwaadiniinta oo dhan wuxuu qofku u baahan yahay in mujtamacu resource-ka dhaqaalaha dalka ana inina noqon intaa jirtay oo dee daruuraha fuushay inta kale la baktiday marka qofku waxay ku galeysaa inuu reerkooda dabada galiyo taajirkii in adeerkii ahaa kaa waxaystay in adeerkii ahaa ayuu daacad u noqonayaa qaranka u noqon maayo intaa xukuumadda la doorta hadday fuliso ama ay wadada raacdo doorashada dambe qabyaaladda waa laga baxayaadoo dawladda ayaa la dooranaya oo waxaa la dooranayaa issueska lagu tartamayo marka waxaan u baahanahay inaan wadada raacno si aynu